saacadihii aynu kasoo gudubnay waxaa social media aada u qabsaday muuqaal kaasi oo kasoo muuqday abtiliban islamarkaana ka hadlaya sababta sharma boy safarkiisa iyo sidoo kale in maslax mideey oo mataana ay fanka ku ahayeen isna uu ka baaqdo casuumaadaasi iyo qaabka sharma boy maraykanka uu ku tagay isna uusan qayb oga noqon maadaama aynu ognahay in intooda badan heeso aada u tira badan ay kasoo wada muuqanayeen muddooyinka ugu dambeeyay ayna aada isaga agdhawaayeen marka la eego fankooda iyo heesaha inta badan iyagu ay ku luqeynayeen abtiliban waxa uu ku doodayaa in maslax mideey sababaha ugu weyn ee uunan ula safri karin sharma boy ama maraykanka uu ku tegi kari waayey ay ahayd in isaga fare ay ka yaalaan laboorada qaar sida uu leeyahay waaxyaha socdaalka siiba wadamada qaar buu leeyahay waxa ay ku haystaan dembiye aada u tira badan oo la xiriira arrimo markaasi darooga iyo waxyaabo kale oo isaga sida ay la tahay abtiliban ayaynu ka haynaa goordhowna codkiisa isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaan idila wadaagi doonaa haddaba waxaynu ognahay sharma boy iyo sidoo kale maslax mideeye laba fanaan oo aada u codkar u ah fankoodana aada markaasi iskula helaya dhanka erayada marka la eego labaduba waa dhalinyaro hibe iyo sidoo kale talenti aada u fiican u leh fanka hase yeeshee haddana waxaa markaasi muddooyinka ugu dambeeyey aada loogu tirayaa fanaaniinta aada u wada dhow islamarkaana wada shaqeyntoodu aada markaasi ay ahayd mid heer sare ah hase yeeshee marka aynu ka eegno dhankan abtiliban waxyaabaha iminka uu soo saarayo cadeymaha uu ka hadlaya ee ku aadan maslax mideeye muuqaalkaasi dhinacyada badan uu ku taabeynaya islamarkaana uu aada ugu karbaashayo maslax mideey oo uu leeyahay waa fanaan badwad leh waa fanaan sidoo kale marar badan ka shaqeeya guuldarooyinka sharma boy sidoo kale isku dhacooda waxyaabo badan ayuu ka hadlay waxaana uu leeyahay fanaankan ma aysan u suurtoobin in maraykanka uu soo gaaro dembiye kale ayaa jira waxyaaba isaga u gaara ayaa jira buu leeyahay haddaba inaga ma xaqiijin karna arrimahaasi hase yeeshee haddana sharma boy iyo sidoo kale maslax mideeye sida aynu ognahay cilaaqaadkoodu aada buu wanaagsanaa inkasta oo dadka qaar warar aada u kala duwan ay faafinayeen oo la xidhiira in labadooda ay isku dhaceen sidoo kale xilligii ay kala tegayeen milyan maanka sharma boy xaaskiisii hore waxaa soo baxay muuqaal sharma boy uu aada uga hadlayo qof uu ku sheegaya inuu saaxiib ka yahay kaasi oo aada wax uga tabanaya sidoo kale uu aada ugu eedeynayo inuu khiyaano u geystay ama dhibaato aan indhaha laga dadanin qofkaasi uu geystay sidoo kale uu kasoo bixi waayey waajibkii saaxiibtinimo iyo kalsoonidii uu ku qabay qofkaasi oo sheegay in gebi ahaanba uu burburiyey laakiin dad badan ayaa muuqaalkaasi durbo u fasirtay aadna u bunbuniyey in maslax mideeye uu ahaa shaqsiga uu ka hadlayay sharma boy inkastoo sharma boy maslax mideeye labaduba ay kasoo wada muuqdeen video ay iskula jiraan oo ay ku beeninayaan arrintan oo ay leeyihiin waxaanu nahay dad saaxiibo ah waxaanu nahay dad wada shaqeyn ka dhexeeya ma nihin dad kala go'i karo iyo arrimo caynkaas oo kale ah sida aynu kasoo xiganayba ama u maqalnay horey isagoo leh maslax mideeye haddaba abtiliban waxa uu leeyahay maslax mideeye arrimo aada u tira badan ayaa fankiisa ku habsanaya haddaba fiisihii sharma boy wadankaasi uu isagu ku gaaray oo ahaa fiiso gaar ah sida qormooyinkii kale warbixinadii aynu helaynay aanu ku eegnayba fiisahaasi o negative oneka la yirahdo oo kamid ah fiisooyinka gaarka ah inta badan shirkadaha ama shakhsiyaadka maraykanka howlo shaqa ah u jooga ama kamid ah muwaadiniinta ku nool xuquuqda leh ayay ugu soo xireen kareen qof kamid ah dadka iyagu ay doonayaan in brogaraamo qaasa ay kala qayb qaataan ha joogo africa ha joogo waddan kale oo maraykan ka baxsan qofkaasi waxa uu la helayaa xuquuq la mid ah xuquuqda ay helayaan qaar ka mid a dadka maraykanka ku nool xuquuqdaasi oo ku kooban in qofka maraykanka gudihiisa inta uu joogo muddo bil 2 bil inta ay doontaba ha qaadatee in uu waddankaasi ka shaqayn karo hab shaqa oo qofka hawshaasi qofka laga martigeliyey ama lagu martiqaaday uu kala qayb qaadan karo programkaasi kooxda ay doontayba ha noqotee kooxda markaasi u yeertay hase yeeshee haddana waxaa leeyahay maslax iyo sidoo kale sharma far iyo faraanti ayaa lagu tilmaamaa dad aada isugu dhawaayahayeen hawshiisa waa uu la socday bixitaankiisa aada ayuu ula socday arrimihiisii ugu dadambeeyey laakiinse maslax kiis kale ayaa jiraa buu leeyahay abtiliban oo isaga si gaar ah uga xanibayo in socdaalada caynkaas oo kale ah waddanka maraykanka uu ku gaaro haddaba fanaaniintan waxay ka mid yihiin fanaaniinta muddooyinka ugu dambeeyay aada fankoodu hore ugu dhaqaajinayo islamarkaana heeso iska soo daba saaraya aada u tira badan marka loo fiiriyo
heerka faneed ee fanaaniintaasi ay gaareen muddada aad ku kooban. haddaba waxaa iminka aad lagu diyaar garoobaya islamarkaana dadka intooda badan ay indhaha ku wada hayaan oo aad uga dhirsugayaan fanka bandhiga weyn ee la filayo in kowda bishan oo aan filayo in ay ku beegan tahay maanta, islamarkaana dad badanna ay aad markaasi u saluugsan yihiin halka uu ka dhici doono markaasi showgaasi. suldaan seraar ayaa isna waxaa social mediaha aad u soo gaaraya muuqaal kooban oo suldaan oo booqanayo goobta ama xarunta ama fagaaraha ama garoonka la filayo inay ka qabsoonto xafladda kowda bisha luulyo, oo la filaya in halkaasi ay ku damaashaadaan koox faneedka ka dhisan north america waddankaasi maraykanka. iminka waxaa kusoo biiray suldaan seraar, sida aad ogtihiinna suldaan seraar waxa uu soo gaaray waddanka maraykanka, xaaskiisa ayaa halkaasina muddo process ka saacidaysay islamarkaana gacan ka geysatay sidii uu kusoo gaari lahaa waddanka maraykanka. iminka waa uu joogaa, aad ayayna dad badan u bogaadiyeen imaatinkiisa maraykanka iyo waqtiga uu la qaadan doono, maadaama uu yahay fanaan isaguna aan ka lidan fanaaniinta kale, maadaama fankiisa uu muddo aad u kooban sidoo kale magac iyo maamuusba uu ka sameeyey. sidoo kale heesihiisa ay yihiin heesaha lagu tiriyo xamaasada leh, xaraarada leh, sidoo kalena marka inta badan aynu aragno xitaa ajaaniibta heesihiisa qaar aad ay u doorbidaan in baariyada ama meelaha xafladaha inta badan ay ku kulmayaan in heesihiisa ay ka shidaan. waxaan ognahay in heesihiisa inkastoo markaasi aroosyada dunida dacladeeda ka dhacayo aad markaasi ay u gilgilaan heesihiisa, haddana suldaan waxuu doonayaa in uu dib markaasi u howlgeliyo hibadiisa faneed, sidoo kalena showgaasi weyn ee la filaya maraykanka inuu ka qabsoomo, inuu kaga luuqeeyo heesa aad u qurux badan, islamarkaana quluubta shacabka aad markaasi saameyn ugu yeelan karayo, maadaama markaasi loo dabaaldegayo kowda bisha luuliyo oo ah xilliga soomaaliya ay xorriyadeeda heshay. haddaba aynu kusoo noqono sharma boy isna haddaba bandhigyo kala gedsanoo gaargaara ayuu ku qabanaya gudaha gobolka minnesota ee cariga maraykanka. dhowaan xilli farxiye kabayre ay ka hadlaysay sharma boy iyo sidoo kale kooxdii ka qayb qaadatay imaatinkiisa ama bixitaankiisa siiba in waddanka maraykanka isaga uu qaab fiisahaasi gaarka uu ku helo, nasiibkaasi jaaniskaasi 26 bisha may uu kusoo aaday showgii halkaasi uu ka qaaday ciddii faan gareysay ama maalgelisay showgiisa. sidoo kale showyada kale ee u qorsheysan in waddanka maraykanka uu ka qabto iyo qorshayaal aad u tiro badan oo farxiye kabayre iyadu ay kaga hadasho oo leedahay dad badan oo ka hadlayo waanu aragnay shooyadan shuqul iyo shaqo iskuma lahabay leedahay. suldaan isagu waxa uu yimid xaaskiisii oo waa muwaadin waddankaasi maraykanka jooga, islamarkaana qaab markaasi sharciga ku yimid. dhanka kalena geeska kalena marka laga hadlayo sharma boy isna waa shaqsi shirkado ama hay-ado isbiirsaday oo brograamadan xafladahan waaweyn ka qayb qaadanayo, dhanka wacyigelintana gacan weyn ku leh, fanaaniin badanna horey u keenay waddanka maraykanka, iyagu u fududeeya in waddanka maraykanka uu soo gaaro, sidoo kalena uu qabsado showyadaasi. waan filaya inaad ka bogateen falanqayntaasi kooban saaxiibayaal. muuqaalkan meel walba oo aad joogto subscribe ha naga ilaabin, sidoo kale like garee, sidoo kale la wadaag asxaabtaada.